qiimayntii buu ilaahay sii wadaa wuxuu uhi wamin annaasi man yacbud allaha calaa xarf bal hadda eega dadkii qaar kale iyaguna ka midoo ilaahay dhinac ka caabudaya cibaadadoodu ma aha mid miisaaman oy biyo dhigeen laakiin waa mid daraf bay ka taagan yihin sababta aayaddu ku soo degtay waxa ahayd bay leen culimadu sida ibnu cabaas oo kale radia allahu canhuma niman baa jiray acraabta iyo reer miyiga soo ka midoo soo islaami jiray markaa sanadkaa ay soo islaameen haddii geelu dhalo oo xooluhu dhalaan oo wiilal dhashaan oo ay noqoto sanad barwaaqo ah waxay odhanayaan war waa diin wanaagsan war ma arkaysaa baynu ku liibaanee haddii sanadkaa waxay kala kacaan oo abaara yimaadaan waxay odhan jireen war balaa aynu cagaha la galay war tan aynu soo xambaaranay maxay ahayd diinta kulule aayaddanaa soo degtay laakina alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sababtun kuma gaar aha aayadduye macnahay sheegaysaa waa caam marka dad noocaasina waa ka midoo iimaanku aan ugu dhaadhicinoo adduunyo ku doonayaba diinta marka hadday khayr helaan barwaaqada aynu soo sheegnay iyo wixii adduunyada iyagu khayrka u arkayeen idma'ana bihi islaamnimadii iyo diintii ayuu ku xasilaya uu qaatay haddii fitna ay ku dhacdo fitnadii adduunyada dee imtixaankii qofku uu marayey markaana wejigiisu iska bedelayaa oo uu isrogayba dhinaca kale uu islaba rogay ninkii soo jeeday adduun iyo aakhirada kaasi uu khasaaray khasaaraha u weynina waa adigoo adduun iyo aakhiraba khasaara dee adduun wuu khasaarayoo waxba muu helinoo waa kan cabanaya aakhirana wuu khasaarayoo dee ajri muu helin ilaa musiibadan ilaahay uu ka cawili lahaa hadduu ku sabree oo uu qadarkana rumeeye dadna waxaa ugu daran qofka caydh iyo ceeb iyo calaflaan iyo cadaab la ysugu daray intaasaa isu raacday khasira adunyaa waalaakhira qofka diintiisa aakhiradiisa adduunyadiisa aakhiradiisa siista iyo ka adduunyada uun wax ku qiimeeya khasaarahoodu waa noocaa qiimayntaa xun waxaa ugu sii wacan caqiido fiican baanu haysaninoo cid aan ilaahay ahayn buu caabudayaa yadcuu min duuni illaahi maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacu